السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كليب كان هالمر يلا فيرسو inaan qaato investorska ama dadka raba khadiijooyinka raba faaraxyada raba inay suuqan maal gashtaan iyagoo aan waqtina iska bixinin madax xanuun badanna uusan ka gelin. wiilkan magaciisa waa wada taqaaniin, waa qof iska tiktok leh oo wiilasha tiktoka ka mid ah oo dadku u shaactiray waa okay. barnaamij wuxuu keenay oo la imaaday in adiga oo cryptocurrency lacag aad gashaysid. waxaa rabaa in aad wax yar ila dhegaysataan waxyaabaha asaga oo ka hadlayo kadib aan isku soo laabano. inaad maalgashatid waxaan jaanis kuu siinayaa inaad suuqyadan maalgashatid adiga oo aan u baahnayn inaad adigu dadaal samaysid, dadaalna bixisid oo aniga iyo tiimkayga aan ka shaqaynayno arrintaas. xalliya marka sideen u maalgashan karaa, sideen uga mid noqon karaa crypto fundkaaga? kow waa inaad tahay qof shaqeeya, waa inaad tahay qof ganacsada, waa inaad tahay qof haysta lacag uu suuqan ku maalgashto. okay, waa inaad tahay qof dulqaad leh oo sugi karaya inta lacagtiisu ay faa'iido samaynayso. kaama ballan qaadayo lacag degdega, kaama ballan qaadayo hal bil kadib baan lacagtaada ku laba jibaaraya, maya, waayo scammer ma ihi, kumana sheegayo laba beri kadib baan lacag kuu samaynaya, bil kadib baan lacag kuu samaynaya. sidoo kale waxaa jiri doona haddii aad ka mid noqotid dadka aan qaadanayo ee kusoo biiraya crypto fundkayga in uu jiri doono contract iyo heshiis qoran oo aniga adigu aynu isku fahanay sida ay wax u jiri doonaan. shuruudaha waa ujeedin doctor xalliye wuxuu keenay qayb la dhaho Soomaaliya in la dhacay. waa ogtiin dad badan la dhacay, qaabka loo dhacayna waa wada taqaaniin. in lis dhibo waa la garoon yahay, inaa idinka isdhacdanne waa la garoon yahay. hadda ka hor dadaa la dhacay, foorarkiisaa la keenay, waa ka wanaagsiiyeen. wuxuu yidhi waxaa haayaa barnaamij horta ninkan xalii la dhaho Kenya ku nool yahay. soo afkiis hadda oo ku sheegi wuxuu dhahay waxaan haayaa aa maamulaa aniga aan leeyahay. waxay la mid tahay waa micnaha hadalka asaga oo dhahay waxay la mid tahay waa cryptocurrency-ga. micnihiis waxa waaye inuu asaga oo leeyahay cryptocurrency. cryptocurrency-na company waa oo dadka way ku dhex shaqaystaan, ma lahaadaan cryptocurrency. wuxuu ku dhahay haddii adiga rabtid in aad lacag badan haysato, haddii adiga aad rabtid in adiga oo lacag kugu filan bishii dhowr lacag ay kusoo gelayso, cryptocurrency-gayga kusoo bir tiim aan ku wada shaqaynaa, lacagtaada lacagay ku dhalay. marka ma kula tahay qof lacag haysto oo lacag shaqaysto oo lacagtiis shaqaysta ay ku filan tahay inuu adiga lacagtaada inuu kusoo waco qadka oo soo galo oo ku dhaho lacagtaada keenso oo kugu shaqaynaa, lacagtaada lacagay ku dhalee, kadib maalin hiblaayaa ku siinaa? qof lacag haysto oo lacagiisna meel oo kala dhigi layahay mu adow inuu ku imaado muu ku leeyahay niyow lacagtaada keen. haddee intaas lacag ay tahay $500 $1,000 kadib cryptocurrency aan kugu daraa. markaan kugu daro lacagta kugu soo baxdo wax kaa siiyaa. micnaha maskaxda in ay shaqaysaa fiican. haddii mar maskaxdaada shaqeeynin bilaash waa. marka